kulanti wacan saaxiibayaal maanta waxa xarunta Harhab ee magaalada Hargeysa nagu soo booqday wariyaasha ugu caansan geeyiga Soomaalida ee dhinaca baraha bulshada inta asxaabtu nala joogto waxaan macluumaad ka siin doonaa Harhab iyo sida waxa ay qabato iyo sidoo kale sida ay dhalinyarada u caawiso waxa kale oo aan mid u soo tusi doonaa qaybaha kala duwan ee Harhab ay ka kooban tahay oo ay kamid tahay halkan aan taaganahay imika ah business incubation zone-ka Harhab ama goobta shaqo wadaag nasoo raaca saaxiibayaal. haddii aad leedahay ganacsi yar mid dhexe ama si aad tahay freelancer Harhab waxay kuu diyaarisay goob si heer sare ah u qalabaysan oo aad ku shaqaysan karto isla markaana aad ka heliso wax kasta oo xafiis u lahaa business incubation zone. goobtani waxay dhalinyarada ganacsiyadoodu cusub yihiin iyo kuwa freelancer-ka ah bay ka caawinaysaa inay helaan deegaan ku habboon inay ku shaqaystaan isla markaana ay ka helaan qalab kasta oo xafiis u leeyahay internet xawaariis u sareeyo goob ku habboon shirarka degdega ah fan booth iyo sidoo kale barxad hore oo qalabaysan. haddaba Harhab business incubation zone qofka isticmaala waxa uu helayaa adeegyo dheeri ah oo aan ku helin kuwa magaalada ku yaala kuwaas oo ay kamid yihiin inuu qofku chance u helayo inuu isticmaalo hoolka weyn ee xafladaha hoolka shirarka oo si heer sare ah u qalabaysan hoolalka tababarada iyo sidoo kale goobtan oo ah goob maskaxda lagu curiyo isla markaana hal abuuro kala duwan dhalinyaradu ay ku soo bandhigaan. magacaygu waa Raale Aadan Michael waxaan ahay aasaasaha shirkadda adeegga Creative Agency Harhab Incubation Zone waxaa la isticmaalay 2 sano u dambeysay kaliya tama aha meel lagu shaqaysto laakiin waxyaabaha ku doortay waxa kamid ah waxay leedahay deegaan ku habboon shaqo sidoo kale waxaad ka helaysaa waxyaabo dheeraad ah oo ay kamid tahay coaching-kii mentoring-kii sidoo kale waxyaabahan ka helay waxa kamid ah maalgelin